بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع نهجه القويم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المشاهدون لنا من كل مكان. dhammaan dadka Soomaaliyeed ee halkan iga daawanaya waxaan ku salaamayaa marka ugu horeysa salaamta islaamka mar labaad assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. waxaan jeclaysay inaan la wadaago walaalahayga Soomaaliyeed ee shacabka Soomaaliyeed ah iyo madaxda qarankaba fiidowgan aan hadda duubayo oo igu kaliftay waxyaabaha soo socda oo dhacay. waxaan la kulmay saakay dhacdo aad u la yaab leh. waxaan ka baxay horta awala marka ugu horeysa anigu waxaan ahay Sheekh Abdulqaadir Sheekh Maxamed Sheekh Abuukar Sheekh Soomow afayinka golaha guud ee culimada Soomaaliyeed. waxaan ka baxay saakay oo taariikhdu ay tahay 18 bisha October 2019 xafiiskayga waxaan ku yaal isla gurigayga waxaan u socday xaflad nikaaxa oo ka dhacaysay hotel Safari oo aan ku casuunaa. waxaan maray wadada waxaan ku tagay iskooyska Sanca halkaas waxaan kula kulmay sida caadada ay tahay booliska Soomaaliyeed ee halkaas Timbotiga oo u yilay. markaan tagay waan soo degday waxaan tusiyay idikaarkayga amba aqoonsigayga waana isu sheegay dadkii ma joogan waa soo istaagay way islaameen oo Sheekh Soomow way aal wadayri sargaalkii wuxuu yiri maya ma ku sii daynaayo maxaa dhacay idikaar wax ku dayma adna ku dayma cid kale wuxuu yaan wacdaha adaa taqaanidow hadda aqoonsi kuma dhino idikaarkayga ku susiyay dadka inta joogo dhan ay wada yaqaan macalaskata qaarkood ay yaqaan u jeeda maxaa dhacay waska laabay hor waa laabday waxaan maray wadada dhinaca kale haddana u laabday bal jirdiinkaan tagay markaan degday sargaalkii afarta lagu fiiqaalay halkaas waa ka jooga meel gadaal aan ugu tagay sidii kii kale markaan u tagoon salaamay oo idikaarka u taagay wuxuu idikaar ma shaqeynaa wadada lagu mari maayo saayada idikaarka ay dadka mas'uuliyadda ay shaqeynay waa la qeysa hor liqo u dhahay jidkana mari meys. waxaa la yaab leh marka anigoo hadda dadka askartu boqolkiiba 80 yaqaaneen bulshada ku nool magaalada Muqdisho ay aad ii wada garanayaan intooda badan haddii ay tan igu dhacday nikaaxi u socday ka soo laabtay waxaan tusiyay waxa ku dhici kara shacabka caadiga ah ee jidka maraya dhibaatada ku dhici karta sid xal arintaas loogu helo waxaan go'aansaday in aan la xiriiro taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Abdi Xasan waa wacay igama qaban fariin qoraal ayaan u sameeyay u diray oo uu qoray wixii dhacay aan u sheekaynayo ima soo jawaabin markaan ku celiyay waa iga qabtay markaan iga qabtay waa Sheekh Soomow fariin qoraalkayga ma waa heshay arintaas aan igu dhacday halkaas aan u socdaa wuxuu ugu dhahay waxa la yaabay oo fajiciisa igu naqday oo ay tahay inaan qof kasta inaan fiidowgan soo duubo igu kalifay ayuu dhahay wuxuu Sheekh Soomow ma waxaad ii soo wacaysaa anoo taliyaha aniga oo ah taliyaha ciidanka Soomaaliyeed jidka booliska iga xirtay telefoonkan waa igu damiyay. waxaan is weydiiyay haddii booliski jidki inuu amnigiisa sugo dadkii la yaqiino oo aan shabaab ahayn oo aan burcad ahayn oo mas'uul ah jidka laga celinayo waxa ila socdo ogow hadday waxa aniga istaafkayga darawalkayga kulli waa boolis waxa ila socdo ciidankii booliska waxa ilaha waa boolis waxa aan u dacwaa taliyay booliska waxa idahaya aniga jidli soo sheegay waa Sheekh Soomow waa taliyay booliska shacabkina sidaas u leeyahay hadda intaas markaan arkay waxaan jeclaysay in aan fiidowgan bal la wadaago bulshada Soomaaliyeed. waxaan rabaa halka inaan baaq ugu diro madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada mudane Umar Maxamuud Umar Firs waxaan iga leeyahay madaxay shacabku waa cadaaban yahay xagga amniga dhibaato uga jira xagga sugidda amniga dhibaato uga jira runinka sheegin been ma sheega haddii arigu oo intaas itaqaan jidka aan mari waayay dadku yow mara ma laga guura magaalada noo sheeg haddii magaalada laga guuray haddii kale waxaan rabaa in maxkamad la geeyo taliyaha ciidanka booliska loo yeero cadaaladda loo geeyo fariintii aan qoray nawahaya waxaan rabaa saraakiisha sameysay in cadaaladda loo geeyo waxaan rabaa oo codsanaya in amniga la sugo oo shacabka iyo dawladdu iska kaashadaan shacabka inaan amniga wax lagu waxyeeleen
waxaan u baahannahay dowladnimo waxaanan deeqda dowladnimo waxaanan deeqda qarannimo nama deeqdo isbaaro cusub haddii ciidankii booliska ee aniga ila socday ee amnigayga sugaayay iyo kuwii aan u tago amnigayga inay sugaan ahayd wadadii aanan u mari karin oo aan nikaax aan u socday gabadh aan nikaaxi laha aanan nikaaxi karin xaggee aadagnaa shacabku xaggoo aadaya madaxweynaha waxaa ka rabaa arrintaas iyo ra-iisul wasaaruhu inay si degdeg ah jawaab looga helo taliyaha ciidanka booliskana waxaan codsanayaa in cadaaladda sidaas inta uu sameeyo sharcigu wuxuu ka qaba in lagu qaado waa maasantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu